waxaa jira sheekooyin aad u badan oo xiise leh oo ku saabsan ganacsiyada guulaysta ee taariikhda muslimiinta ee xilliyadan casriga ah. waxaa jira shakhsiyaad kulansaday iimaan, sharaf iyo dadaal kuna gaaray guulo waaweyn oo ganacsiyo xusid mudan. waxaan barnaamijkan ku soo qaadanaynaa sheekada saxaabigii cabdiraxmaan bin cawf Allah ka raali noqdee, kaasoo ka mid ahaa saxaabadii rasuulka ahaana ganacsade guul ka gaaray dhinaca ganacsiga. cabdiraxmaan bin cawf Allah ka raali noqdee wuxuu ka mid ahaa 10 saxaabi ee iyagoo nool jannada loogu bishaareeyey. wuxuu caan ku ahaa guulaha cajiibka uu ka gaaray ganacsiga. inkastoo cabdiraxmaan wax aad u yar ku bilaabay ganacsigiisa, haddana dadaalkiisa iyo anshaxiisii dhinaca ganacsiga ayaa ka dhigay inuu ka mid noqdo raggii ugu taajirsanaa ee magaalada Madiina. haddaan soo koobno taariikhdiisa, cabdiraxmaan wuxuu ka haajiray magaalada Maka isagoo gaaray Madiina. wuxuu ka tegey dhammaan hantidiisii. muslimiintii magaalada Madiina ayaa cabdiraxmaan u soo bandhigay dhaqaale iyo xitaa inay u guuriyaan si uu u dego, balse cabdiraxmaan ma doonayn inuu ka guddoomo deeqdaasi. wuxuu si adaab leh u diiday bandhiggii deeqsinimada ahaa ay ugu talagaleen, balse taa beddelkeeda wuxuu ka codsaday inay tusaan halka uu ku yaallo suuqa, halkaa uu durba ka bilaabay dhaqdhaqaaq ganacsi. daacadnimadiisii, iimaankiisii iyo kartidiisii, cabdiraxmaan bin cawf wuxuu si dhaqsi ah sare ugu qaaday ganacsigiisa. wuxuu bilaabay inuu iibiyo badeecooyin ay ka mid yihiin noocyada kala duwan ee subagga iyo badeecooyin kale oo aad looga isticmaali jiray magaalada Madiina. sumcaddii uu ku lahaa ganacsiga ayaa dhaxal siisay inuu kasbado kalsoonidii dadka, dhaqaalihiisana uu sare u kaco. ka sokow hantida faraha badan ee uu ka kasbaday, haddana cabdiraxmaan wuxuu ku noolaa nolol caadi ah oo kibir iyo isla weyne ka fog, wuxuuna caan ku ahaa sadaqada. haddii aan wax ka tilmaamno deeqsinimadii cabdiraxmaan bin cawf, wuxuu ganacsigiisa uga faa'iidayn jiray dadka kale, wuxuu maalgelin jiray mujaahidiinta islaamka, wuxuu taageeri jiray dadka masaakiinta aan waxba haysan, wuxuu sidoo kale dhaqaale aad u badan ku bixin jiray barnaamijyada tabarucaadda ah. waxaa lagu xusuustaa in badeeco ganacsi oo uu lahaa oo ku rarnayd 700 oo neef oo geela oo ka koobnayd cunnooyin iyo badeecooyin kale uu hal mar sadaq ahaan ugu qaybiyey dadkii danyarta ahaa. taajirnimadiisii marna hoos uma dhigin iimaankiisa, wuxuuna ahaa shakhsi hantidiisa uga faa'iideeya ummadda islaamka ah. haddaba maxaan ka baran karnaa qisada cabdiraxmaan bin cawf? qodobka koowaad, anshaxa wanaagsan ee ganacsiga. cabdiraxmaan wuxuu had iyo jeer ku dadaali jiray sharafka iyo daacadnimada dhaqdhaqaaqiisa ganacsi, taasoo uu ku mutaystay inuu kasbado macaamiishiisa iyo dadkii ay ganacsi wadaagga ahaayeen. haddii aad tahay qof anshax wanaagsan oo macaamiishiisa iyo dadka kale uu ganacsiga kala dhexeeya si wanaagsan ula dhaqma, daacad ah, aan khiyaano aqoon, waxay u badan tahay in dadku ku aaminaan, taasoo sabab u noqon karta inaad hesho macaamiil iyo xulufo ganacsi oo wanaagsan. qodobka labaad, dadaal iyo hal abuur. xitaa markii uu yimid magaalo uu ku cusub yahay isagoo aan waxba haysan, wuxuu durba arkay fursado ganacsi. wuxuu ka bilaabay halkii ugu fududayd oo markaasi awoodi karay, taasoo sabab u noqotay guushiisa. arrintan waxayna tusaysaa qofka doonaya inuu ganacsi heer ka gaaro mar walba inay muhiim tahay inuu dhaqdhaqaaq sameeyo, hal abuurna la yimaado, isagoo qiimaynaya halka uu ka bilaabi karo ganacsigiisa iyo waxa uu markaasi ku bilaabi karo. wax dhib ah ma lahan haddii ganacsigaagu uu wax yar ku bilowdo, maxaa yeelay cabdiraxmaan wax hanti ah ma wadan markii suuqa la tusayey, balse wuxuu wax ku bilaabay wax aad u yar, taasoo markii dambe dhaxal siisay inuu ka mid noqdo raggii ugu taajirsanaa magaalo uu yimid isagoo cayra. qodobka saddexaad, deeqsinimada iyo sadaqada. ka sokow hantida badan ee uu helay, marna ma uusan ilaabin in deeqda Alle ku manaystay uu qayb ka siiyo dadka u baahan, isagoo yaqiinsan in guushiisa aysan ahayn keliya mid uu isagu gaaray, balse ay tahay mid ay dadkiisu qayb ka yihiin. sadaqadu waxay ka mid tahay waxyaalaha uu ganacsigu ku barakoobo, dadku kugu jeclaadaan, Allana aad ugu dhowaanayso. mar walba oo hantidii eebbe ku siiyey aad sadaqaysato,
wuxuu alle kuu barakaynayaa wixii uu ku siiyey. sidaa darteed waxaa laga maarmaanaya inaadan marna ilaabin in wixii aad awooddo aad ku celiso dadka danyarta ah. intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka. magacaygu waa xasan nuur. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.